madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay danjirayaasha cusub ee dalalka Australia iyo dalka Canada oo fadhiin doona dalka Soomaaliya. Danjiraha jamhuuriyadda federaalka Australia Christian oo madaxweynaha la wadaagay fariin iyo salaan uga siday ee dhigiisa dalka Australia ayuu tilmaamay dadaalka uu ku bixin doono sare u qaadida xiriirka labada dal isagoo oo dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed uga mahadceliyay soo dhaweynta diiran ay u sameeyeen. Sidoo kale danjiraha cusub ee dalka Canada Marwole Zayn oo waraaqaha danjiranimo aqoonsiga madaxweynaha maanta ka gudoomay ayaa sheegtay sida wanaagsan oo ay ugu faraxsan tahay inay ka mid noqoto bahda diblomaasiyiinta ee ka howlgalaya gudaha dalka Soomaaliya. Dhankiisa madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa danjirayaasha waraaqaha ka gudoomay uga warbixiyay sida dawladda federaalka Soomaaliya ay uga go'an tahay xoojinta xiriirka ku dhisan iskaashiga iyo wax wada qaybsiga ee kala dhaxeeya dalalka caalamka. madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa danjirayaasha cusub u hambalyeeyay xilka loo magacaabay wuxuuna u sheegay inay soo dhaweyn wanaagsan kala kulmayaan shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya.